السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنال كمركز السود واضح أدي هذا ومهتسنتين وقالك نوحن ربعنا ندخل وذاقه نينك عدان كاي عنصري جاهي شلي فرع عدله وقبح صدي مدتكي كسهر جدي إذا ماذا آيس مدام ودوني إن كتاب القرآن وجوب إسلام مركانه dad yar oo isaga la socdayna ay doonayeen howlgallada ciidamada ICE ay ka wadaan Minneapolis iyo St. Paul inay taageeraan ninkii dhaawac ayaa soo gaaray sida isagu uu leeyahay waxa la igu dhuftay yiri toori laakiin waxa loo maleynayaa waxyaabihii lagu tuurayay mid kamid ah madaxa inuu dhaawac ka soo gaaray waa uu hadlay madaxweyne Trump ayuu ku calaacalo yiri in lacagta isbitaalkana hal la iga bixiyo isla markaana ammaankayga mustaqbalka hal la sugo wasaaradda gaashaandhigga oo sheegtay in 1500 oo ciidamada la diyaariyay haddii loo baahdo si Minneapolis loo geeyo haddaba arrimahaasi ayaan rabaa inaan idinla wadaago iyo ninka hadalkiisa calaacalka ah uu ku hadlay ayaan doonayaa inaan wax ka iraado balse marka hore soo dhawaada maalnimadii shalay ahayd waxaan ogeyn in ninkii cadaanka ee cusriga ah Jake Lang uu yimid Minneapolis isla markaana uu doonayay inuu mudaharaad uu looga soo horjeedo muslimiinta Soomaalida gobolka Minnesota laguna taageerayo ciidamada ICE inuu halkaasi ka sameeyo laakiin sidii uu wax u rabay wax ma aysan u dhicin dhinaca kale waxa ka taagnaa dadweyne aad u fara badan oo ciidamada ICE ka soo horjeeday marka ninkan markii hadal yar uu ka jeediyay goobta xarunta dawladda hoose uu doonayay inuu ka bilaabo socodkiisa ilaa iyo xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay sida Riverside uu ku tago maba loo suginba isagoo aan xaruntii dawladda hoose ee City Hall-ka aan ka dhamaanin ayaaba gacanta loola tagay isla markaana waxayba u muuqatay inay neeftu ku xirantay oo ay naftu ka baxayso sida muuqaaladan aad ka aragtaan markaas kadib wadooyinka ayaa lagu ceersaday qofba wixii uu ku dhufan karo ayuu ku dhufanayay waxay sameysteen barafka iyo snowball intay ka sameysteen dhagaxaan ayay ku tuurayeen xitaa kaamiradiis iyo qalabkii uu watay qaarkood waa tan lagu istaagayo la burburinayo oo waa la burburiyay marka waxa uu hotel la yiraahdo Indigo ayuu si orod ah ku galay si uu nafsadiisa ula baxsado xitaa hotelkii waa looga daba tagay markii dambena sida arkaysaan booliska ayaa yimid oo dadkii waxay yiraahdeen waa inaad goobtan aad isaga tagtaan marka koox yar oo cadaan ah oo cunsuriyiin ayaa isaga la socotay laakiin kumanaan kale oo ICE ka soo horjeeday ayaa waxayba u diideenba in uu ka dhaqaaqo goobtii xarunta dawladda hoose ee downtown-ka oo ilaa ay xaafadda sida Riverside uu doonayay in uu ku tago lugta halkaas oo sida uu sheegay uu doonayay inuu Quraanka ku gubo ninkan Jake Lang waxa uu kamid ahaa 5 sano ka hor bishii January 6 sanadkii 2021 taageerayaashii Trump oo markii doorashada uu Biden kaga guuleystay ayna aqalka Congress-ka qalalaasaha ka sameeyay oo dambi lagu helay isla markaana la xiray waxa bartiisa X ku qoran in 1467 maalmood uu xirnaa marka Trump kii hadda bishii January ee sanadkii hore uu xilka la wareegay waa kii 1400 ku dhawaad oo dadkii la xiray oo dambiga lagu helo booliska dhibaateeyo xaruntii Congress-ka burburiyay waa kii Trump cafiska u fidiyay marka dadkii Trump cafiska u fidiyay ayuu kamid ahaa haddana waxa uu sheegay in uu senator u tartamayo oo gobolka Florida marka ninkan hadaladiisa ka hor inta aan la weerarin oo wadooyinka Minneapolis aan lagu ceersanin oo naftiisa uusan la baxsanin hadaladii uu sheegay waxa kamid ahayd in uu doonayo dadka muslimiinta ah in ay halkii ay ka yimaadeen ay ku laabtaan Soomaalidana sidoo kale dib loogu celiyo wadankoodii waxana sidoo kale uu yiri dadka soo galootiga waxa ay bedelayaan dadkii cadaanka ah ee wadankan iska lahaa ayay bedelayaan sida aan ognahay ninkan waxa uu sameeyay urur ugu magac daray Americans Against Islamification dadka Mareykanka ee ka soo horjeedo in la muslimiyo dadka cadaanka ah ee Mareykanka ururkaasi ayuu sameeyay oo AAI la yiraahdo sida darteed waxa uu leeyahay waxa ka soo horjeednaaba in dadka cadaanka ah ee wadankan ay diinta islaamka ay qaataan sida ognahay diinta islaamka waa diinta ilaa iyo hadda sida xooliga ah ku faafaysa marka la barbar dhigo diimaha kale ee ka jira caalamka marka ninkan oo Trump dadkii uu cafiyay kamid ahaa waxa la arkay isagoo dhiigaya marka madaxa ayaa qaybta sare ay wax uga dhaceen isagu waxa uu leeyahay midi ayaa la igeliyay laakiin booliska Minneapolis waxay sheegeen ilaa ay hadda wax ribooda inaysan helin oo ninkaasi uu soo gudbiyay marka kulli isbitaal ayuu tagay isbitaalkii markii uu tagay kadib qodobo ayaa madaxiisa sawirka idama tusi karo oo baraha bulshada waa ay ku dhagayaan laakiin qoraalkan
ayuu soo qoray oo madaxweyne Trump uu ugu calaacalayo. waxa uu leeyahay hadda waa la idili gaaray, waxaan ku dhawaaday ayuu leeyahay in la idilo oo dadka cadaanka ka soo horjeeda. dadka inta badan weerarayeen dad cadaan ayaa u badnaa, Soomaali wayba ku yareed ba, dad madow iyo cadaan ayay u badnaayeen. dadka ninkan ceyrsanayay oo hoteelka xitaa gaari intuu galay ayaa in lagala soo baxo gaarigaasi lagu sigtay, oo dad ayaa badbaadinaya, qaarkood kuwii la socday ilaahay iska daaya ha tago nafsadiisu marka faraci dila ninkaasi kula baxsaday bixiyo badbaadiya ka dhacday. marka waxa uu leeyahay dad cadaanka ka soo horjeeda oo liberal iyo illegal immigrants ayaa waxay ku sigteen inay idilaan. marka waxa uu yiri hadda isbitaalka ayaan ku jiraa oo qaybta sare ee madaxiga ayaa la qodobeynaya, waa sida qoraalka uu isagu ku soo qoray. marka waxa uu leeyahay waxayba ku sigteenba lugaha xitaa inay iga siibtaan. ninka sida arkayseen jaakad yar oo festiyo sito kuwa ciidamadu qaataan. marka sidaa darteed xitaa jaakada way furan tahay, mar uu cararayo waxaad arkaysaa in jaakada xitaa in lagala baxo uu ku sigtay. marka wuxuu yiri in lugaha iyo gacmaha ay iga siibtaan ayay dadkani ay ku sigteen. marka wuxuu leeyahay maayarka magaalada Minneapolis ciidamadii booliska ahayd wuxuu leeyahay wadooyinka ayuu ka qaaday si aniga nolosha la iigu cuno iyadoo waliba TV-ga la iga daawanayo. marka ninkan wuxuu leeyahay booliska xitaa maayarka magaalada Minneapolis wadooyinka waa uu ka qaaday si aniga nolosha la iigu cuno, waa sida isagu qoraalka uu soo qoray. marka madaxweyne Trump ayuu ku calaacalaya. madaxweyne Trump ciidamada ilaalada qaranka hadda soo dir ayuu leeyahay. marka sida arkaysaan Trump ayuu wuxuu leeyahay ciidamada hadda soo dir maxaa yeelay nolosha ayaa la iigu cuni gaaray. waxa uu leeyahay dadka cadaanka ay hadda wadooyinka ku dilayaan lynching. waxa inta badan lagu micneeyaa extrajudicial killing oo qofka si bareer oo dadku ay daawanayaan in la dilo oo aan loo bayeelin. marka waxa uu leeyahay hadda dadka Christianka oo cadaanka ayaa wadooyinka Minneapolis lagu dilaya ayuu leeyahay. marka waa sida isagu uu sheeganayo, laakiin arrintaasi ma jirto. ninkan maadaama uu doonayay inuu halkaasi dhibaato ka abuuro, isagii ayay hadda dhibaatadii dib ugu laabatay sida muuqanayso. marka waxa uu leeyahay Trump haddana ku calaacalaya, wuxuu leeyahay waxaan kaa codsanayaa please inaad iga caawiso lacagaha isbitaalka iga baxay. haddii aad shii tahay maxaa soo doontaniyo macad gurigaada isaga joogi wayse. marka sidoo kale waxa uu leeyahay mustaqbalka ammaankaygana ha la sugo. marka Trump uu ku calaacalaya wuxuu leeyahay ammaankayga ha la sugo. haddii aadan wax ammaankaada suga aadan haysanin maxaad kitaab in 1 bilyan ka badan dad ay aaminsan yihiin aad doonaysa inaad u gubto oo aad u soo baxaysa. marka ninkii calaacalkaasi ayaa ka baxay oo Trump wuxuu leeyahay fadlan isbitaalka lacagihiisa iga bixi, mustaqbalkana ammaankayga ha la sugo. saasuu hadda ku calaacalaya sida qoraalkan aad ka aragtaan. marka waad arkayseen wadooyinka Minneapolis wixii shalay galabtii ka dhacay. ninkaasi uu cararay xitaa hotel uu galo, hotelkii looga daba tegay. markii dambena boolisku ay dadkii kala ceeriyeen. dhinaca kale wasaaradda gaashaandhigga waxay sheegtay in ilaa iyo 2 batalyan oo ilaa iyo 1500 oo ciidamada on duty-ga oo shaqada ku jira oo militariga in la diyaariyay haddii loo baahdo si Minneapolis loo geeyo. marka wasaaradda gaashaandhigga ayaa sidaasi dhahaysa. waxaan ognahay sidoo kale gudoomiyaha gobolka isagu inuu heegan geliyaba ciidamada National Guard-ka ee militariga ilaalada qaranka haddii lacala loo baahdo iyaguna si loogu soo daadgureeyo wadooyinka magaalada Minneapolis. marka maantana sidoo kale mudaharaad kale ayaa jira. waxaan ognahay sidoo kale jimcaha soo socdo 23 bisha in mudaharaad iskuulada aan la aadaynin, shaqo aysan jirin, dadku in la isku soo baxo mudaharaad weyn isagana lagu baaqay 23 bisha. marka ninka cadaanka waa kaasa isagoo calaacalayo dhahayo wadooyinka Minneapolis la igu dili gaaray, dadka cadaanka waa la iska dilayaa. Trump ciidamada ilaalada qaranka soo dir, isbitaalka lacagtiisa iga bixi, mustaqbalkayga ammaankiisa inaa subtaan ka rabaa. waxyaabahaas uu leeyahay. xitaa Florida ninkan waxa uu sheegay in uu sanad u tartamayo. marka ma garan karo kulay dadka cunsuriyiinta ay inta badan ay doonayaan inay ku soo daraan Congress-ka. marka ninkan sida muuqata shalay faraci dil ayuu ku baxsaday, mana u malaynayo inuu Minneapolis uu mar kale dib ugu soo laabanayo waxyaabihii shalay ku dhacay. marka ninkan meelo fara badan uu tago dad muslimiin ay ku badan yihiin Mareykanka oo kitaabka Quraanka inuu ku gubo isku dayay. marka arrintaasina kulay xuriyatul qowl waaye ayay ku leeyihiin, laakiin in dad 1 bilyan ka badan diintooda sidaas loogu gafo haddana la iska daawado waxaan u malaynayaa aad iyo aad u mahadsantahay. nabadgelyo.